بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذنا الله منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوتي في الإسلام، إخوتي في العقيدة، إخوتي في الجهاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan walaalaha islaamka ah meelay joogaanba, walaalaha halganka ayaan salaamayaa si gaara. waxaan usii salaamayaa naftooda horeyaalka jiidda hore ku jira ee reer Ogaadenya. waxaana guud ahaanba salaamayaa howlwadeennada iyo mas-uuliyiinta ee madaxda halganka jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadenya. bacd asalaam, waxaa aan barnaamijkan ka horeeyey aan soo jeedinay in aan sameyno silsilo taariikhda Ogaadenya ah iyo marxaladihii iyo xiliyadii ay soo martay, isagoo markaa aan u dooranay inaan kasoo bilowno ilaa xilligii Axmed Gurey. oo Axmed Gurey aad ogtihiin, Axmed Gurey wuxuu dhashay waxaa la yidhaha 1627 1600 ilaa xilliga uu mataqaanaa shahiidi doono ilaa Sayid Maxamed. ilaa isbedeladii halgankeeni inaan sidaa silsilad isku xidhan bay ahayd runtii, oo midba mid uun mataqaanaa kasii dab qaadanaysay, laakiin interval uu udhexaynaya ama kala googo-aysay. walaalaha halganka iyo howlwadeenka ayaa waxay soo gudbiyeen codsi ah odhanaya taariikhdaas dheer ka hor in hadda aan u baahannahay inaan ka hadalno xilli dadku ay aada hadda su-aal isu weydiiyaan, oo ahaa xilligii isbedelka Etoobiya ku dhacay, kii Soomaaliya ku dhacay, sida aynu uga qeyb gallay jaartarkii iyo isbedelkii Etoobiya, sababihii aan kaga qeyb gallay, waxyaalihii lagu heshiiyey, waxyaalihii dhibaatooyinka la soo darsay iyo waxa ku dhacay, asbaabaha keenay dagaalka maanta socdaay inuu qarxo iyo ciddii qarxisay iyo wixii ka dambeeyey. mowduucaas muddadaa ayaan marka u dooranay. marka u horeysa, aniga oo ah maxamed cabdi yaasiin, waxaan idiin sheegayaa marka u horeysa xilligaas aan hadda kasoo bilaabayna waa 90kii oo Soomaaliya ay ku dhacay, burburkii Soomaaliya bilowday, iyo ilaa 91kii oo Etoobiyana isbedelkii uu ku dhacay. xiliyadaas anugu ka qof ahaan dalka Ogaadenya ku sugnaa. Soomaaliya waxaan kasoo tegay 1980kii, isaga oo howla halganaan gudaha usoo gallay inaan ONLF iyo ahdaaftii marka aan WSLF inaan ku bedela doonayna gudaha ka samayno. arrintaasoo markii dambe noo suuroo weydo asxaabtii gadaal loo yar noqday, qaarna ay gudihii ku hadheen, anu kolle gudahan ku hadhay. marka maraaxisha aan idinka sheekeynayo o dhan
goobjoog ayaan ka ahaa marka ogaadaya gudaheeda ayaan ku jiray marka xilligii ay Soomaaliya burburku ku dhacay Ethiopia wax badan kamayna dambeeyay sababtoo ah way gilgilanaysa lafteeda laakiin laba kala qorshe ahayd oo Soomaaliyana heerarka burburkeedu wuxuu ahaa heer la doonayo Soomaaliya sida ay maanta tahay in loo burburiyo heerka Ethiopiana wuxuu ahaa in la bedelo rejiimka laakiin Ethiopia aan la burburinin xilliga markii Soomaaliya burburtay Mengistu maalinkii uu baxayay markii uu baxayay wuxuu akhriyay khudbad dheer isagana markii bax la yiri khudbadu akhriyay baa waxa kamid ahayd maalinkii muddo dheer ilaa 3 saac khudbad akhriyay shaqaalaha ayaan cid shaqo tagin buu yiri TV gu fadhiistay wuxuu yiri Ethiopia inaan ka baxo ayaa hadda go'aankii noqday isagoo sabab looga dhigayo Ethiopia badbaadadeeda oo inayna sida Soomaaliya noqonin laakiin aniga Mengistu ahaan waxaan idin sheegayaa wuri Ethiopia magaca inta la bixiyay ee xuduudda loo sameeyay Mililakh ayaa kow ahaa oo xuduudda weyn ee Ethiopia sameeyay iyo ballaariyay waxba lagu xasuustaa inuu khariidada Ethiopia bedelay oo in yaroo ahayd mataqaanaa Abyssinia oo buuraleyda ku xeernayd inuu intuu ka ballaariyay xuduudda weyn ee maanta Ethiopia magaca la yiraahdo loo sameeyay ninkii keenay Mililakh buu ahaa taasaa lagu xasuustaa buuri Hayle Salaasana waxaa lagu xasuustaa buuri in uu keenay Ethiopia oo aan bad lahayn oo la lokray in bad loo sameeyay oo Red Sea ama badda cas uu Ethiopia ku soo daray oo Eritrea ku soo daray waa mawduuc kale oo dheer Ethiopia say Eritrea ugu soo darsantay iyo xaaladaas okay aniga Mengistu ahaan buuri miyaan noqonaynin ninka lagu xasuusan doono oo waxyaalaha taariikhda dadka Soomaaliyeed aan aad iyo aad ugu baahannahay inay maskaxda ku hayaan kuna xisaabtamaan Mengistu haddaan miyaan ahayn buuri ninka lagu xasuusan doono anigu cadawgu Ethiopia soo jireenka ahaa konton sano god uusan ka soo baxaynin ninka salka u dhigay ku riday soo aniga ma aha buuri Mengistu haddaan uu ka sii faallooday faallooyin dheer buu ka sii tiriyay wuxuu yidhi sababahay ugu suurowday iyo wixii u fududeeyey isagoo weligii ku riyoon arrintaas inay u suuroobi gashto ciddii u fududaysay ciddii u bilowday ciddii ugu xoogga badnay inay arrintaas ku guulaysto oo Soomaali dhexdeeda hadalkaasi waxaa ka mid ah hadalladiisii waxaana weligii ku riyoonin intaan hubkayga iyo qalabkayga siiyo qof Soomaali ah inuu Soomaali igu soo dirayo isbedelkaas markaa ka dhacay geeska Afrika midna ahaa in Soomaali la burburiyo midna ahaa in isbedel regime ama regime change lagu sameeyo Ethiopia ayaa horta waxay ahayd xilligii taariikhda ama wadciga geeska Afrika uu aad isu bedelay xilliga marka xaaladda jooxo ama ururka ONLF xaaladiisu say ahayd markaan halkaa ka soo bilowno ONLF markaa markeedii horeyso waxay ahayd urur lagu aasaasay underground oo macnihii qarsoodi ah oo qarsoodi wuxuu ka ahaa jamhuuriyadda Soomaaliya oo goobtii lagu aasaasay ah iyo Ethiopia oo cadawgii lala dagaalamayay labadaba laga qarinayo labadubana ay anti ku ahaayeen oo ay ka soo horjeedeen ururka ONLF samaysintiisii 1984 sida awgeed waxay ahayd marka wadciga ONLF markaa ku jirto wadci ah underground isagoo undergroundka lagu jiro xaaladuhu iska badnaayeene aan ka soo gudbe ayaa qaraxii Soomaaliya dhacay qaraxii Soomaaliya markuu dhacay Ethiopia waxba kama dambaynin xilliga marka Ethiopia loo gurmanayay waxay dawladaha reer galbeedka oo hormuud ay ka ahayd dawladda USA ee Mareykanka ayaa waxay isugu yeedheen mucaaradkii Ethiopia oo dhan si Ethiopia markaa Mengistu looga saaro dawladdana wadaag oo kale mucaaradka la siinayana loo la yeelo safaaradda Mareykanka ayaa shirkaasi ka dhacay innaga ururkii
la oran jiray mataqaana OAG ayaa markaa inaga matilayay waxaa maalinkaas shirka inay ka qayb galaan dabcay naxariista allah siiye maxamed siraad doolaal iyo axmed cabdi xuseen axmed cabdi xukun oo markaa inaga manduubin inooga ahaa London waa loo diiday maxaana lagu diidina jawaabtii waxay noqotay waxaadan lahayn baa la yidhi garab military maadaama marka aydan garab military lahayn sidaa awgeed shirkaas lijibal uma tidin maxani uba cuntantiin waa kolley warqadaynu qorqornay oo aan ku eedeynayno in ay dowladdii maraykanka iyo mataqaana nimankii insaaniyadda sheeganayay inay dadka ku qiimeynayaan inta dhiigdaadintu badan tahay iyo wax lamid a laakiin kolley wax aan shaqaynayni inay tahay baa halkaa ay laynaga tusay xilligaa marka waxaan isku daynay innaga ka oonala fahaan in bal wax deg deg oo ciidan ah aynu samayno oo tigreega iyo ciidamada soo socda ee mataqaanaa doonaya Ethiopia inay qabtaan ka hor istaaga dalkeen maxaa yeelay ciidamadii hore ee gobonimo doonka ee WSLF way burbureen ugu dambeyntii inihii ugu dambeeyena ciidamada Soomaaliya jamhuuriyaddii bay militarigeedii noqdeen sidaa ogeed waxba kama dhaqnayn arrintaasi marka runtii arrimo taariikhda kolley maanta aan hadda halkan ku cadaynayna laakiin xilli kale laga sheekayn doono sabotaaj ayaa dhacay lacag baa la diray lacagtii cid baa loo dhiibay ciddii la rabay markaa inay wax ku diyaariso ma aynan diyaarinin intaasaan kaga gudbayaa arrintaasi waxay ahayd nagso dhinacina kaga dhacday marka xilligeeda iyo taariikhdeeday noqon doontaa asbaabahay ku dhacday iyo mas-uuliyaadkeedii marka ay marka soo galeen TPLF iyadu dabadhoon ba ahayd marka EPLF oo Eritrea ayaa dhulka haysatay ciidanka wax qabanaya iyagu ahaa cidda leaderkii iyagay ahayd shirkii Londonna Eritrea waxaa la yidhi Ethiopia qabsada oo idinku xukuma laakiin way diideen oo siyaasa fawarqa halkaa wuxuu yidhi shacbigayga oo intaasoo sano oo uu soo dagaalamaya gobonnimo igama aqbalayo inaan maanta idhahdo Ethiopia idin xukumayaayo aad ka simid ahaanayso intaasoo baabay sidaa awgeed waxaan idin keenayaa cid boos kaa gasha laakiin Eritrea xornimadeedu wax laga laabanaya maaha sidaas ayaa malis ku keenay isaga laftiis maliska aad ogeydeen cadaawadu ay isaga siyaas halkaa ka wada gaadhay isayaas baa keenay markiisii horena hubeeyey jabhadoodan u sameeyey laakiin qoladan tigreega ayaa wayaanaha ayaa waxaa la yidhahdaa sidoodaba waa waxaan ballan lahayno wax shahaame iyo ballan iyo mataqaanaa iyo cahdi midna kama xidhmo oo aad baa sidoodaba loogu yaqaanaa mingisti baa markaa uu calaacalayaba hadalkiisa waxaa ka mid ahaa Ethiopia maanta loo yaabaa kolkii ay kuwii buuraleyda deganaa ee dhiig karka wada qabay markay xukumaan yaa Ethiopia loo yaabaa hadaladiisa xilligaa lahaabaa ka mid ahay marka waxaa dhacday kolkii dhulkii saa noqday ONLF waxoogaa way su-aalaha la isweydiiyey dad waxay soo jeediyeen shirka aynu ka qayb gallo saba ka dhacaya ee balqoomiyaadka lagu kulminayo dadna waxay yidhahdeen maya ka qayb geli mayno asxaabteenna qaar kamid a ONLF ayaaba idaacadaha ka sii daayay oo yihi shirkaas kama qayb gelayno nimankaasina waa khaa'imiin wayna na khayaameen waana ka joogsanay runtii arrintaasi tigreega laftooda iyo kuwii Eritrea ciidamadii maataqay huwanta markaa ee barnaamijkaa watay arrin adag bay ku noqotay si qowmiyaadkii dulmanaa iyo jabhadihii dagaalamayay ee wadacaanka ahaa ee len ONLF waxay matilaysay ogaadeen bay matilaysay ogaadeen war iyo wixii dagaal soo dhacay oo dhan kolba cidda maalinkaa haysa mataqaanaa raayada ama calanka haysa unbaa halgankii matilaysa marka ummadii Soomaaliyeed oo dhan iyadoon cid matilaynin way ku adkaatay dowladda aad iyaga ula dadaalayay qaar kamid ahaa oo ay kamid ahayd Suudaan ayay marka la hoos galeen Suudaan baa marka waxay tiri waxaan keenaynaa wax Soomaali in cid Soomaali matisha la helo oo shirkan ka soo qayb gala qowmiyaadka oo dhan mooyeen suuragal ma aha maxaa yeelay
markii la yidhaahdo conflict ahaan waa ka ugu dheer dagaalada soo jiray, area ahaan markii la yidhaahdo waa areada labaad dadka ku nool macnihii mandiqaadka iyo qowmiyaadka Ethiopia marka la yidhaahda iyagu marka iyagu wataan. sidaa awgeed ma noqon karto meel ciidan iyadoon matilin go-aan laga gaari kare, waa inaa cid la helaa. Suudaan bay la kaashadeen, naxariistii janna allaha siiyo, laba oday oo jabhadii WSLF markaa mas-uuliyadeeda u dambeeyey ahaa oo xamar la haystayaal ku ah marka oo maxaabiis ahaa, iyo niman kale oo la jiray ayaa caydiid iyo group lihi oo iyaguna wax ku soo dardaray iyo arrintaa lala hoos galay. dayaarad baa lagaga soo qaaday marka khurduum ka tagtay baa waxaa laga soo qaaday mataqaanaa xamar, odayaashii baa la keenay. odayaashii markii in la keenay aan ogaanay, xaaladiina aan eegnay innaga ka ONLF markaa intii adu areada ka dhoweyd shir baa la sameynay, Soomaaliya oo dhan aan isugu yeedhnaan nidhi. bishii Juun 1991 ayaa waxaa shir lagu qabtay Gargaar. Soomaalida ogaadeen degto oo dhan qabiil ahaan iyo qof ahaan cid alla cidii danaynaysa oo dhan baa ka soo qayb gashay. maalinta dad badan baa hadlay, waad ogtihiin. qaar baa yidhi mataqaanaa ONLF markaa guddi yaroo ku meel gaadha yaa jiray. Sheekh Ibraahim baa guddoomiye ku meel gaadh ahaa. Maxamed Ismaaciil oo markii hore guddoomiye ka ahaa Jarmal ku galay, markaa maadaama uu qaxooti noqday haddana waxaa guddoomiyennimadii Sheekh Ibraahim baa qabtay. Sheekh Ibraahimna markaa Abu Dhabi buu jiraa. guddi maamul la yidhahdo ku meel gaadh aan meesha markaa kusii joognay oo yaa sii joogay. guddigii marka waxaa la yeelayaa shirka aynu marka hadday saasay noqotay Soomaali aan shirin, Gargaar baa ku shirin. Gargaar markii lagu shiriyay Soomaalidii waxay yidhahdeen ONLF baanu ku daba fiirsanay, laakiin nima yahow ONLF siyaalo iyago u fiirinaya waxoogaa magaca ooda iyo sadbursi iyo waxbaa yar jiri bal dadka ha loo dadaal iyo waxa meesa. sidaa awgeed wafdi baa halkaa laga shakilay, adisabaa loo diray. wafdigii wuxuu ballantu ahayd marka horeba horta inay odayaashii meesha la keenay ee adeerada ahaa inay la kulmaan. adeeradii bay la kulmeen, waxay yidhahdeen maanta inaga ummad Soomaali baan istaraatiijiyadu ahayd inaan wax la kala qaadaa jirin. ONLF iyo WSLF every shakhsi Soomaali ah inuu wan ahaado oon markaa sidaa ku gallo aan kagana qayb gallo. maadaama aadan garab ciidan lahayn, waa sidii hore baan idinku sheegay, runtii hadalkaaga, nufuudkaaga iyo awooddaada oo dhani way dhaawacan tahay. seeftaaduna iyo hadalkaagu wax badan ma goynayaan. xilligaa waxay idhahdeen okay, waan aqbalay midnimada, waxaan samaynaynaa baarlamaankii dhammaa oo markaa xilligaa la sameynaya ku meel gaadhka ahaa 2 qof baan idin siinaynaa bay idhahdeen Soomaaltiin. bas 2 qof marka waxaan idhi alright, innagu ka ONLF ahaan istaraatiijiyadaan leenahay. kow, charterka iyo xeerka meesha yaalla horta aan aragno. xeerkii baan aragnay, ma qaadan karnaa, ma ku hawlgeli karnaa. waan aqrinay xeerkii. markaan aqrinay xeerkii waxaa nooga soo baxay qodob loo yidhaha qodobka 39 oo aada wax u caddaynayay, oo ahaa qodob odhanaya muddo 2 sano ah ama ugu badnaan 2 sano iyo badh, saas uu qeexayaa. waxaa dalka sii haynaya oo sii hogaaminaya jabhadihii caasimadda qabtay, jabhaddii caasimadda qabatay iyo ururadii qabtay oo markaa EPLF la baxeen. laakiin TPLF buuna markaa EPLFta mar dambaa la kordhin doonaa, magaca dhoodhoob buu ahaa. muddadaas gudaheeda waxaa la sameynayaa doorashooyin qowmiyaadka iyo nationalitiyaalku doorashooyin inay sameeyaan, dowlad hoose ay dhistaan, baarlamaan hoosena ay samaystaan. muddadaa 2 sano ilaa 2 sano iyo badh ugu badnaanta ah gudaheeda ciddii kamida qowmiyaadkaas ee ku qanci weyda inay Ethiopia kasii mid ahaato waxay xaq u leedahay baarlamaankeeda ay dooratay inay fadhiisiso. baarlamaankaasi hadduu 3 meeloodow 2 isku raaco in afti laga qaadana markaa
muddo 3 bilood gudahooda afti lagaga qaado shacbigood wuxuu doonayana markaa loo maro shacbigaasi ama xornimo ha doorto ama Ethiopia ha doorto ama wixii doorashada shacbigaas arrin kale ahayd oo kolley verification iyo caddayn u sii baahan aftida la qaadayo maxaa lagu qaadaya ilaan aftida markii la qaadayo aftida waxbaa lagu saleeyaa ha iyo maya ma aha white and black kaliya ma noqoto ma Ethiopia inay raacaan ama xorriyaan baa loo qaadayaa min wax kale oo mataqaanaa confederation iyo federation kale iyo maxaa loo qaaday bal ma ahayn waxay ahayd up to secession tani waa cadday waxay ahayd goosasho inay u qaadan karaan sidii baan ku aqbalay baarlamaankii labadii xubin inoo gashay ONL waxaan ka ONL waxba inaga gelin xubin dadkii reer ogaadan yahay shacabiyada kale ee gargo shirka kala qayb galay nala socday maalinka oo Maxamed Xasan Kaahin la oran jiray yaan ONL xubinkeedii seenay WSLF keedina waxaa la siiyay naxariista jannaah la siiyay ugaaskii ugaas majeerteen Maxamed ugaas Cabdi xilliga marka maxaan bilownay waxaan yidhi horta aan dadkeenii isku xidhno kow calansaar ha la sameeyo calansaarkaasi wuxuu ka soo bilaabanayaa ilaa baabili ilaa wuxuu soconayaa meesha u dambeysa ee Liiban laba istiraatiijiyadood baa markaa socotay waxaa kaloo odayaashii ku heshiinay inaan samayno hal urur oo ONLF iyo WSLF la mideeyo shirweyne inta la qabto shirweynahaas lagu mideeyo labada urur calansaarkii iyo hawshii runtii waxaan u idmanay Sheekh Cabdinaasir dhaxaris jannaah siiyo iyo odayaal kaleeta waa la badnaa kolley arrintaas dhankaasi ka socotay xaggana waxaan samaynay maadaama aan xogogaal ahayn inagu arrintan ciidamada iyo hawsha iyo dhibaatada ka jirta iyo inaan laga leexanayn haddaad faramaran tahay gargo-an baan ciidan markaa ku xaraynay ayaantaa horeba ciidanka gargo-an lagu xareeyay u horreeyena xilligaasaa lagu xareeyey tababarkiisi iyo ciidan samayntiisa iyo gargo-an marka xarun ayaan ka dhignay ciidan waxaa dhacday xilligaa labada urur marka midayntooda iyo laysku ogaa doorashadaas in la sameeyo laysku ogaa in markaa aan nidhi aan shirweynihii hal la qabto shirweynihii hal la qabto ONLF iyo WSLF ama shirweynihii reer ogaadanya xogaa khilaaf baa marka meesha soo galay khilaafkaasoo qolyihii odayaasha ahaa ee WSLF iyo qolyo kale in mataqaanaa ay u arkeen xamaasad iyo ONLF dhankay u badato mayna ku raali noqonin Sheekh Ibraahim baa yimid naxariis jannaah la siiyo shirweynihii ayaa la qabtay marka oo lagu qabtay magaalada Garbo 1992 bishii January kowdeedii ayaa la qabtay halkaasaan isugu tagnay aad shirkaas inuusan qabsoomin Tigreeg way u carqaladeeyeen heshiis baa jiray markii hore ay ahayd shirarka noocaas oo kale ah ee ururadu ay qabsanayaan in ay xaq u leeyihiin in la facilitate gareeyo oo gacan laga siiyo oo ururada noocaas ee waaweyn ee shirarka qabsanayaan oo dhan la maalgeliyo kolley waxaa soo dhan sabataaj bay ku sameeyeen way ka baxeen waxaa shirkaa qabtay ururka ONLF oo keli ah shacbi weynihii oo dhan iyo qayb gaar ah oo lama ilaawaan ah oo ay ka qaadatay degmada Garbo iyo gaarkeeda shirka waxaa ka soo qayb galay dhammaan gobolada ogaadeen oo dhan istaraatiijiyad baan runtii u dejinay oo dad codaan ahayn qorshaha waxaan u sameynay waxaan nidhi wufuudda imanaysa magaalo walba wufuudda ka imanaysaay waa inay gaadiidkoodana soo qaataan logisticadooda soo qaataan oo dhan shidaalkooda gaadiidkooda iyo raashinkooda jabaduna maxay u sii dejinaysaa aagay degi lahaayeen iyo maamulka marka qolo waliba iska macnihii isku tashiga ayaa aasaasi inoo ahaa oo qolo waliba ay ku timid waxaa kaloo jirtay Garba iyo odayaasheeda iyo degmadeedii
dadaalkay sameeyeen waxay keeneen 24 halaad oo hiliba 24 geel ah oo markaan hal leehay awrku iyo halku amida ay ku jiraan awrar goolal ah oo markay socdaan mataqaanaa awrka wuu majaduurooy baa la yidhahdaa markuu aad u cayilo kuwa noocaas ay ku jiraan 24 halaadna waa lagu qashay shirki wuxuu noo socday marka muddo 7 waxaa halkaa lagu dhisay for the first time golihii dhexe ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadenya guddoonkeedii ayaa halkaa lagu sameeyey karateeriyada markaa xilligaa lagu sameynaya aasaasiga ahayd ee xubnaha golaha dhexe iyo lagu aasaasayay karateeriyada dadku waxay u maleeyeen ONLF weligeed 4.5 mayna soo marin mana ahayn waxay ahayd muddadii shardiga koobaad wuxuu ahaa karateeriyada koobaad qofka priority-ga koobaad lehi inuu ahaa qof xubin soo ahaa xilligii undergaroonka intuu ururku ah runtii meelo aan waxoogaa yar tixgelinihiya siinay oo nidhi mataqaanaa bal exclusive ahaan un maaragtay inclusive ahaan maaragtay inclusive inay noqdaan oo waxoogaa lagaga soo daro meelo aan ku yara caymina way jirto aan ku yar egnay laakiin gadaal baaban ka ogaanay qofku halgan mar hadday tahay iyo howlaha noocaasa qof lagu soo daray qof isagu isku soo daray uma ku anfaca qof lagu soo daray weligaa ku anfici maayo ogaada maxaa yeele qofku raqabadu ku yimaado ayuu wax ku gooya isku shaqeeya xilligaa markay dhacday marka doorashadaasi shirkii shacbigii baa la dhammaaday shirkii shacbigii baan kala dirnay waxaa la yidhi golaha dhexe ha soo hadho si barnaamijkii iyo qorshayaalkii loo sameeyo barnaamijkii iyo qorshayaalkii shirkii golaha dhexe uu fadhiyo weli qof ka bixin ayay tigreegu markii hore waxay isku wadeen oo iyaga fikirkoodu ahaa in ay sameeyaan khilaaf inuu meesha ka dhaco shirku uusan imanin waxyaale aan yaro dareemaynin oo kale oo xataa kala reebkii dadkii aan rabin inuu kasoo qeyb gala ay qaybalu ku yeesheen waxoogaayo ay aad inay carqaladayaan damceen logisticadii iyo mataqaanaa waxyaalihii dhaqaalihii la rabay shirka inay ku kaalmeeyeen ay xanimeen waxyaalo badan inuusan shirku soconaynin bay ku talagaleen laakiin si la yaab leh oo aan caadi ahayn buu shirka u dhacay waxaa dhacday markaa inay yidhaahdeen aan burburino inta ayna meel gaadhin dagaalkii iyo tigreegna waxay u yaqaaneen dagaalkii moto amisti ama dagaalkii 105 baa laga dilay